أهلا وسهلا وذاقيال كسر وهذا برتمهد عبد الله وكله يوتيوب كي فيسبوك أبا أنا وحق مسار نوسي أصدقني قبيلة دوالتين صويا عايدة وحنا أنت بدن حوق صارنا مركن نغطار معها بالشدة هذا صورنا يصاد برنامج هذا مهد عبد الله سود أيوه بالشدة وانفعيا وحكا عصنيا إناد قيبسان رنتي أدبان كاجمد علينا ما أنتوا برنامج رنتي حساسية وأن ودريمي وحداد للدرينتان رنتي يا بدونتان والله برنامج maxay ku dhacday Soomaalidu markay noqoto waqtiga Ramadaanka inay yiraahdaan hal is cafiyo 12 bilood ayay markaa qaarkood soo caytamayeen aflagaado aad u weyn geysanayeen maxay hadaba ku dhacday inay yiraahdaan hal is cafiyo waqtiyada cafisku waa wax wanaagsan laakiin marmarka qaar bay isleedahay waa afka baarkiiso malaa'ika labada malaa'ika garabka ku saaran ayaaba la khaaimaya ma isleedahay hadaba waxaad la yaabaysaa ninba shalay wuxuu soo qoray qoraalkan halkan oo ku qoran yahay wuxuu leeyahay walaalkayo waxaan doonayaa baryahan oo dhammaan ku caynayay maraad hargeysa joogtay anigoo ku aflagaadeynaya ayaad lacagna isiisay lacagtii markaad isiisana aflagaada ayaan kugu sii diray waliba waxaan doonayaa tiiba qalbigayga taabatay inaad cafiso marka waan u jawaab waxaan ku yiri ma sha Allah ma 12 bilood kadib baad cafis wisa cafiskan wuxuu ka yahay mid daacadka ah oo maartay sida doonaysid inaad ummadooda ay ku cafiyaan haddaad cafisid oo ay sida ku dhamaato sheekadu markaas uu yirmaya kaftankaygu 30 cishay ramadaanka uu way wixii ka dambeeyay halkii baan ka bilaabayaa waxaan la xiriiray saaxiibo fara badan oo runtii ilaa 13 aan aad kala usfaranahay waxaan weydiiyay ma hesheen wax la yiraahdo cafi ama cafis waxay yiraahdeen ha inboxkeena waxa ku soo dhacaya nacafi oo cafi ayaa ku soo dhacaya خلط بانو كا قلنا كوبي توم بلود بانكو افلغادينيني ku caynayni wax walba ka sheegaynay maanta nacafi marka waxa ajiib la koobiyo 10 bilood oo caytamayay afkiisna wuxuu ku soo baxay waliba qaarkood hooyooyinkood iyo adeeradood iyo reerahoodaba ay wax aflagaadeenayeen inay yiraahdaan cafi laakiin kalmadu markay dhamaato waqtiga cafi ramadaanku uu dhamaado 30 cisho ay noqoto in halkay ka miisaan marka ma afka baarkiisa talow isleedahay waxan ba inayna ka ahayn daacad صدمك بيشو والبريك أي كقاعدنا يعني وحن تيك توك جاي مالها كلا كواركي صدمك عشاء أفلقاد هذا بريك أي كقاعدنا صدم عشاء كدي بلابنا وحن كلا أركي يكورنا يا ما هي أنت اللي سوميها هي ساعدها اللي سوميها بمبريك قاعدنا نوحي كدم بيها أفلقاد هذا هالكاسي كبلابنا هذا مو ثاني سويدين يا وحي توام حي محاكيني كلمتها إن تكوبي تومبرود ذاتك أفلقاد ديسو يدو مركز صدم عشاء كدي بنا هذا هالكي كبلابنا مقيل بين قونيسا عفيس كان صدنك عشي إلهي إنه كاغا عفيو أديقو أوج إن هاد ماشي كبلابس دما حمانتا أيان دونينا إن ددوينها كفكري وحا أن هذا حبك بس عنيسو من إلهينا لما خائب كرو إبليس جوجيتا تاسوتا ما أنتو حن لكل ما مقالة محن جوجا اسطنبول بيزنس وقتي بيزنس كويرا لهذا وحلقة بقيلة إن هاد مقليسان لين هالكذا شقيسنا يا ayaad qayna ka maqlaysaan maanta waxaan la kulmay nin Soomaaliyeed oo magaaladan ninku waa 25 oo kala jira wuu islaamay wuxuu igu yiri mahado miyaad garanaysaa waxaan ku raadinayay 10 sanadood runtii aad baan ula yaabay nin 10 sano raadinaya waqtiga ay musu jiraan sileedahay markaa wuxuu jiray 15 14 meelahaas uu jiray markaa wuxuu igu yiri 10 sanadood baan ku baadi goobay miyaad garanaysaa ماذا عبد الله وقرن واي نن لا يروح حوق الى هاي جوج يا جماعه ودليه دير بدن قروحدنا waa maxay quruxdu waa wanaag iyo ixtiraam iyo haybad ba ka muuqatay Soomaalinimo qorqornaantii Soomaalinimada ayaa runtii aad iyo aad uga muuqatay ninka odayga ahaa markuu ila fariistay oo shaahi u shubay oo ila fariistay ayaa ilmo ka soo daadatay indhihiisa wuxuu yiri mahado waxaan ku raadinayay 10 sanadood ima garanaysid adigu أنا وأخو قرنايا براها بالشدة وأخو أركي لكن مرنا ما كل ما كل من واحد جعله أنا كل ما أقول الحمد لله أنا أدبر وفرح سنة إن اللي يرى أنا كل ما جعلها هاي محاضرنا وحيري إلهي كسكو أداء بدبادي إلهي كسكو أديك ما حد عبد الله أيها بدبادي وحكوري قربها أنت أصلا كنا ولا ولي محمارة الدقفة وحيسترنا مويانه بدبادك أنا قرن معي وحيرين والبا wax loo taray isaga og ninka wax u taray qofka kale isagu ma oga runtii meel ka san ka baaray ma baari kartaa inaan kuray ah oo caawisay mar aad maartay wax u tartay
markay noqoto waddankii ayuu dib igu celiyey 10 sannadood ka hor waxaan ku yiri garan maayo dadan caawiyey asxaab aan isla fariisanay dhalinyaro yaroo maaragtay aan waxayse siinay oo jiri karaan wuxuu yiri daba soo dhaw mahdow arrintan ayaa dhacday waxayna kugu reebi doontaa caawa ama maanta aan joogno yaab ama kaag iyo farxad wuxuu yiri 2013kii 2013kii bay ahayd buu yiri anigoo yar oo jira markaa 13 14 12 da'daydu wuxuu yiri maan garanayn laakiin 13 jir baan waqtiga ahaa waxaad ka soo dhaqaaqdeen buu yiri Berbera adiga iyo laba inamadood oo kale ayaa waxa ka yimaadeen dhinaca Berbera gaari baad wadateen mar alla markaad Berbera ka soo socoteen magaalo Hargeysa ku soo noqonayseen ayaan waxa dhacday yiri geed baan koray geedka waa geed weyn oo haba yaraatee lahayn wax imaartay lahayn dhir geedka waxa ka baxayay dhinaca kale qori oo meesha ka jabay ayaa ka baxayay oo sidan aan ku tilmaamay oo kala wuxuu yiri geedkii baan ka soo dhacay mahdow inta wixii ka dambeeyay wixii dhacay maan ogeyn waan xasuustay waan naxay inankii ba adigiiba inankii waa anigii inanka waxa ku dhacay annagoo ka soo socno Berbera oo soo dhaqaaqnay oo nimid markaa meel lagu baarayo askar dadka soo galaya maxay yihiin iyo la baarayo si dadaalayo ayaa waxay nagu yiraahdeen halkan waxa yaala inan maaragtay khatar ku jira la doonayo in la qaado isbitaal Hargeysa la geeyo ninna saaxiib leeyahay Axmed wuu diiday wuxuu yiri mahdow inankaasi hadduu nagu dhinto annaga nala qabsanaya ma qaadayno wax walba ka dhaca ninkii kale gaariga wadaysana wuu diiday wuxuu yiri wax walba ka dhaca anigu qaadi mayno dad kale fara badanna way diideen waayo waxay meesha ka ogaayeen in haddii isbitaalka marka la geeyo ilmahan yar la keeno ilmahan yaa mas'uulka ah yaa waxaan keenay muxuu ku dhacay miyaa disheen maxaad u geysateen waxaasoo dhan baa la isweydiinayaa runtii anigu waan u qaadan waayay inanka waxa ku dhacay geedkii ayuu ka soo dhacay geedka markuu ka soo dhacay ayaa geedkii jiribka ahaa wax kale muu samaynayna dabada ayuu ka galay ilaa halkaa marka intaa dhudhunka waxa ka soo jeeda geedkii gudahana intaasaa ku jira ilaa mandhecerkii inankan wuu maqan yahay khaatiyaan buu taagan yahay wuu suxsan yahay afka waxa ka socda dhiig xagga hoose dhiig iyo wax walba ka socda bal qiyaas adigu picture it sawirka bal qiyaas ilma yar oo qori gudaha kaga jiro qorana ka soo baxsan yahay bal qiyaas adigu isweydii inta kaliya isweydii runtii walwal iyo naxdin iyo waxa la noqotay ama kaag kama dhaqaaqi karo morally waxay siin waayeen inaan ka dhaqaaqo waan eegi kari waayo ilma yar oo halkan islaan curyaana ayaa wada oo halkan keentay halkan baa la dhigay waxaan ku yiri wax walba hal igu dhaco hal ay xiro ama meel kasta hal ay geeyo waxaan doonayaa inaan geeyo isbitaalkii Hargeysa xagida ma soo saaray waxaan sidan dhabtaan ku qabtay waxaan ka masaxay wixii ma eegi kara meesha kale adduunyaha socota ninkan uu suxsan yahay waqtiga ma jirin laamigan quruxda badan leh hadda ka Berbera karodhal waa quruxda badan leh arkaysaan siduu u dhisan yahay quruxda badan leh taa daraadeed ayaan haba yaraatee laamigu wuxuu ahaa mid jajaban jajabka ayaanu ku soo wadnay mudcina uu sii galayo wax walba si kasta u qabtay gaariga hoos baa loo wadaa ayar kasta u soconay haddana dhibtaasaa jirtay waxba yaanad ku daalinin isbitaalka Hargeysa markiiba annaga jeelkaana la geliyay waxa la yiri yaa dilay midinkaa dilay yaa mas'uulka ah isbitaalku waa markaad ogaanayso marmarka qaar markaan maqlo waddanka dhulka Soomaalida oo nimca fadhida yaa nimca way fadhidaa laakiin markay noqoto arrimaha dhaqaatiirta isbitaalka naxariista haba yaraatay waxba kama jiraan waxaana la weydiiyay $200 oo keentaan mooyaan ninkan ma taabanayno anaguma humanitarian wanaaga iyo diinteena waxayna fartay ayaanu qabanay waan soo kaxaynay in meeshii baanu keenay markiiba way dadaaleen booliis baa yimid booliisku wuxuu yiri waxaan idin geynaynaa inankii meel baa lagu xareeyay 200 wax meel kasta ka keenay waanu weyn waxaan ku riir ma soconayso annagu ma garanaysaa meelaan ka keenay lacagta garan maynee ilmahan waa si naxariis leh soo qaadnay si naxariis leh ku daweeya ama wuxuu ilma inuu dhintay kara xataa dee waanu garanaynaa inuu neefsanayo laakiin wax kale ma jiraan habeenad ku daalinin $100 ayaan depositaan u siinay waliba aniga laga qaaday mahad abdulla bixiyay kadibna waxaan la geeyay jeelka waxaan la geeyay booliiska raali hada su'aalaha la weydiiyay wana dareemi karaa way booliisku mar walba accident haduu dhaco labada qof way booliiska geeyaan haddii xataa gafartaas wax ka gaaro booliiskaas waxay baarayaan qofkan kula kacba loo dilay mise
waxayna weydiiyeen ilmahan in uu kac iyo waxa ku dhacay iyo wixii oo dhan baan farnay iyagii baa xataa isweydiiyey waxay ku leeyihiin ralaada sidaad u soo qaad miyaad ka soo qaadaysaa adiga miyaad xanuunsantihiin naxariistii baaba dareemi karaa anigu waan dareemi karaa mahad cabdullahi buluusku dadaalaya oo maaragtay baarayo laakiin dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay isbitaaladii iyo meel markaad xanuunsato oo meel cidlaa accident ku dhacdo aad garan doontaa inaad Norway iyo Mareykan iyo Scandinavia Ingiriiska ba aad u mahad celiso tirada alxamdulillah intaadan xanuunsanayn oo xanuun kugu dhicin ama kugu soo boodana ama accident kugu dhicin waxa taagan tahay nimca fadhida yes nimca way fadhida nabadgelyada way taagan ma sha Allah ilaahay barakeeyo wax walba ay haystaan meel walba dhulka Soomaalida waanu ducaynaynaa laakiin dhakhaatiir aan naxayn iyo meel aan naxayn oo iska doonaya uu lacag ba jooga okay ilmihii halkii baa igu dambeysay laakiin naftu waxay siin weyday badda casbaan deganaa 2 cisho kadib inaan soo noqdo waxba way ka qaban waayeen waxay sameeyeen un dawooyin injection iyo waxbay ku dureen meeshana waxay xididada iyo irbaday ku mudeen ilmihii mar baan soo booqday waxa la rajo ma leh kan soo xasuus anyway wala qaaday ilmihii hadii sababa dad kula naxariis badan dahabshiil group khayr Allah siiyo ayaa iyo group kamid oo kale oo markaa si dadban ugu shaqeeyay dahabshiil garan maayo laakiin lacagtu dahabshiil bay ka timid baa markaa maqlay adiis baa la geeyay ilmihii waa wixii laga qaban karaa laga qabtay ninka ay salaamayay waa ninkii 13 jirka ahaa ee waqtiga maaragtay danta ciishay waqtiga accidentka ilaahay u kasay in qorigu waa nin haybad leh wuxuu igu yiri waa la ii sheegay inaad maaragtay meeshan ilaahay ka sakow aad ku dagaalantay inaad Hargeysa ay keento isbitaalkana igeyso haddii lacag noqon lahayd haddii ka warhayn noqon lahayd anigu laakiin runta markaan sheego waqtigaas ay igu dambeysay adiis oo markii in adiis la qaaday waan ogaa laakiin wax ka dambeeyay lama socon haddaba marmarka qaar adigoo wax yar qabanaya ralaada adigoo wax yar qabanaya oo sogeyn mise wax weyn oo qurux badan ayaad qabanaysaa laakiin isma ogid marka inankaas xalay iyo shalay wuxuu igu abuuray wax wanaagsan oo qurux badan oo aan waligay ka samreynay sooranaynin maaragtay wuu igu beeray sawir baan iska soo qaadan soo gelin doonaa berito ayaan balansana waa faa'iidooyinka ugu weyn aan kala kulmay Istanbul waa dunia yaab leh dunia casrisan iyo dunidii horeba oo iskugu timid halkan haddaba wadaage waxtar ha kugu soo noqotay ducadu inanka ii duceeyay habada ka muuqday wuxuu wiil waliba uu guursaday mar alla markuu uu guursaday iyo accidentkii hayay meesha ayaan isku kay qaban waayay markaasaan yes ilmaan dhalay markaa halkaa waxaad ka dareynaysaa inuu caafimaad ilaahay siiyey meel walba wuxuu yiri xanuun 2 sanadood buu isbitaal ku jiray lacag waxa ku baxday intaasoo kun oo laga sheekeynayn dad fara badan oo naxariis leh ayaa wadanka jooga oo isugu tagay tol iyo tolaanba ninkaasi inay yaro kuraya oo miyi ku nool buu ahaa geed ka soo dhacay bal halkaan tusaya geedku ka soo dhacay nooc uu yahay oo kale ayaan halkan ka tusaya hadaad u fiirsato geedka halkaa ka baxaya oo qoriga ah waa kaasoo kale ayuu ahaa geedku isweydii siduu ahaa markaa aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba meel walbaad caalamka joogtaan waa magaalada Istanbul waa walaalkiin mahad cabdulle wax kale inad oran mayne dee ramadaan kariim ramadaan wanaagsan baan idin leenahay please waxaan idinka codsanayaa isku naxariista isku dulqaata meel walbaad caalamka joogtaan qof kastoo Soomaaliyeed oo walaalkaaga Soomaaliga koow ka dhig kadibna carabta iyo meelaha kale waxa tari karto laakiin Soomaaliga ka dhig edabta iyo akhlaaqda iyo dulqaadku waa waxay bulshada horumar ku gaarto waana wax wanaagsan in la isku dulqaato waa bil ramadaan baa soo galaysa ti ayayna noqonin tii cafiska riwaayad ahayd ha noqoto tii runta ahaa oo markaad cafis dadka cafinaysa ama cafis dalbanayso ha ka noqdo mid forever ah oo dib ugu noqonaynin laakiin hadduu ka yahay kaliya tii bisha 30 cishaad isku dhaafinayso wadaage ilaahay lama qaaymi karo markale waa walaalkiin mahad cabdulle anagu xooga ma saarna siyaasadan iyo qabyaaladan waalatay soo yaacay oo sidaa iyo
nabadgelyo iyo naxariis kulanteen aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba